dhammaan madaxweynayaasha Mareykanka waxay ahaayeen kuwo si weyn u taageera Israel oo loo yaqaan markabka diyaaradaha xambaara aan la quusin karin ee Mareykanka ee ku taala meesha ugu istiraatiijisan ee adduunka. Si kastaba ha ahaatee, Donald Trump markii uu ololeynayay madaxtinimada 2024 ayaa u sheegay golaha Mareykanka Israel inuu ahaa saaxiibka ugu wanaagsan ee Israel abid yeelata. I was there 4 years, gave them billions and billions of dollars. I was the best friend Israel ever had. Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa taasi ku raacay shir jiraad uu ku qabtay aqalka cad. Netanyahu ayaa ku tilmaamay Trump inuu yahay saaxiibka ugu weynaa Israel abid ku yeelata aqalka cad. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. Tan iyo markii aqalka cad dib ugu soo laabtay Trump waxa uu ahaa mid u janjeero dhanka Israel una taageero intii uu awoodo. Wuxuu muujiyay sida ugu soo horjeeda Falastiin run ahaantii kunuu aqalka cad kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayuu Trump ku cadeeyay inuu doonayo inuu dhammaan Falastiiniyiinta ka saaro magaalada Gaza una qorsheynayo inuu la wareego dhulka Falastiin isagoo sheegay in Mareykanka uu lahaan doono Gaza. The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it. Waxa uu Trump soo jeediyay waa isirsifeen cad gumaysi ka ceyrin malaayiin Falastiiniyiin ah oo asal ahaan ka soo jeeda dhulkooda iyo u ogolaasho Israel inay gumaysato kadibna ka dhisto guryo raaxo luxury properties. Trump waxa uu sheegay in Gaza noqon doonto Middle East Riviera. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. Laakiin sida caadiga ah madaxweyne kasta oo Mareykan ah ayaa taageeray gumaysiga sharci darrada ah ee Israel ay ku hayso dhulka Falastiiniyiinta oo soo socday sanado badan. Tanina maaha wax cusub, balse Trump ayaa ku dhiiraday inuu caddeeyo ujeedkiisa uu ku doonayo inuu gumaysto dhulka Falastiiniyiinta. Qoyskiisuna waxay u taagan yihiin inay ka faa'iideystaan balaarinta deegaamaynta Israel iyo dhisidda guryaha raaxo si Gaza ay u noqoto meel loo dalxiis tago. Taban Trump waa bilyaneer ku takhasusay horumarinta guryaha luxury-ga sidoo kale. Wiilka oo soo dago u yahay ee Jared Kushner oo qaba gabadha Trump Ivanka oo ah hantiilo hodan ah. Sida Trump ma aha wax iska dhacay in Jared Kushner uu dhaqaale badan geliyay shirkado Israel si ay ugu faa'iideystaan balaarinta deegaamaynta Israel. Trump waxa uu si cad u sheegay in reer Gaza laga saaro dhulkooda. Sababtoo ah Israel oo taageero ka helaysa Mareykanka ayaa asal ahaan burburisay dhammaan dhismayaasha halkaasi ku yaalay. Kadibna Trump iyo Kushner waxay rajeynayaan inay ka faa'iideystaan dhisidda guryaha luxury-ga. Tani ma ahayn markii ugu horeysay uu Trump soo hadal qaado suurtagalnimada in Gaza laga dhiso guryo qurxoon oo loo dalxiis tago. Maalintii caleemasaarkiisa 20 Janaayo oo ah maalintii uu ku soo laabtay aqalka cad, Trump wuxuu ka dhawaajiyay qorshihiisa uu ku dhisayo Gaza isagoo xusay in Gaza tahay meel aan caadi ahayn oo saaran badda. Gaza is interesting. It's a phenomenal location on the sea. Best weather. Everything's good. It's like some beautiful things could be done with it, but it's very interesting. But some fantastic things could be done with it. Fikirkan waxaa sidoo kale soo jeediyay sanadka hor Febraayo 2024 wiilka uu Trump soo deg u yahay Jared Kushner. Waraysigan oo ka dhacay Harvard, Kushner waxa uu ku dul heebaabay hanti taala Gaza oo uu soo jeediyay inay noqon karto hanti aad u qiimo badan. In Gaza's waterfront property, it could be very valuable to if people would focus on kind of building up, lively. Kushner oo hadalkiisa sii wata waxa uu raaciyay in Israel ay ka saarto Falastiiniyiinta oo ay nadiifiso. I think from Israel's perspective, I would do my best to move the people out and then clean it up. Hadda wiilka Trump oo soo deg u yahay ayaa la nadiifiyaa. Tani waa baaq ku saabsan isisifeen qaawan. Waxay la mid tahay halka eray isisifeenta uu ka yimid qarnigii 19aad tii uu Mareykanka uu ku sameeyay dadka asalka u ah Mareykanka iyaga oo la laayay dhulkoodana laga saaray Israel ahaan loo tirtiray kuna gumaystay dhulkooda. Dawladeed waxay ka taajireen dhul badan ay dhaceen. Sidaas ayaana lagu aas-aasay Mareykanka dal ahaan iyo Canada iyo Australia iyo Israel. Israel ayaa weli waxay ku jirtaa isirsifaynta Falastiiniyiinta oo ka soo bilowatay aas-aaskii Israel 1948 iyo wixii loo yaqaanay Nakba. Halkaasi inta badan Falastiiniyiinta asalka ahaa laga saaray dhulkooda. Soo noqod la'aan waa sababta ay Masar u diidan tahay in Falastiiniyiinta loo soo barakiciyo Siinaa.